kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa warbaahinta Soomaali Vlogger Media ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyay ee gudaha dalka qodobada ugu waaweyn ee aad daawan doontaan waxaa kamid ah waa sidee xaaladda guud ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir kadib dagaal xalay halkaas ku dhaxmaray ciidamada dawladda iyo sidoo kale dad shacab ah oo hubeysan hadaba waxaan eegi doonaa khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi iyo sidoo kale si guud ee dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee maanta laga helayo degmada Daynile ee gobolka Banaadir qodobada kale aad qaybtan ku daawan doontaan waxaa kamid ah رئيس وزراء هوري حسن علي قيري ومدحوينه حسن الشيخ محمود ku eedeeyay inuu weerar ku qaaday degmada Daynile hadaba waxaan oogi doonaa fariin hajabaad ah oo uu soo diray Xasan Cali Qeyre rئيس وزراء hore ee dalka waxaan oogi doonaa qodobada kale waxaa kamid ah waa maxay heshiiska ay wadaageen Soomaaliya iyo sidoo kale Burkina Faso waxaan eegi doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo fariin muhiim ah gaarsiiyay Ibrahim Traoré madaxweynaha Burkina Faso maxay tahay fariintaasi aan eegi doonaa qodobadan iyo qodobadii kale ee nagu soo kordhay daawada qaybta ku daawan doonta haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saara channelkeena haddii aad horena la joogtaan waad ku mahadsan tahay like saar muuqaalka waa hagaag aan ku bilaawo xaaladda guud ee degmada Daynile ayaa maanta wali kacsan kadib markii xalay uu halkaas ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale maleeshiyadka deegaanka oo aad u hubeysan dagaalka ayaa si gaar ah waxa uu uga dhacay xaafadda Warlaliska waxaana la soo warinayaa inuu sii kordhayo khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca leh ee ka dhashay dagaalkaasi inta la xaqiijiyay waxaa iskahorimaadkan ku dhintay 4 wiil oo kamid ah dadka deegaanka waxaana ku jira wiil yar oo lagu magacaabo Musamil Yusuf Cusmaan oo 3 sano jir ah sida ay sheegeen ilaalada deegaanka ah oo halkaas ku sugan sidoo kale waxaa la soo wariyay in khasaare uu gaaray dhanka dawladda waxaana dagaalka ku dhintay 4 askari sida warbaahintu heshay wararka ayaa intaas ku daraya in wali ay socdaan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo ay wadaan labada dhinac taasoo iyana abuurtay cabsi ku aadan in dagaalka uu sii socdo maadaama ay huburuursi ay wadaan labada dhinac waa ciidamada dawladda iyo dadka hubeysan ee ku sugan gudaha degmada Daynile gaar ahaan xaafadda Warlaliska dhanka kale shacabka ku dhaqan xaafadda Warlaliska ee degmada Daynile ayaa intooda badan isaga barakacay guryahooda si ay markaa uga fogaadaan waxyeelo ka soo gaarta dagaalka soconaya xiisadan oo soo noqnoqotay ayaa salka ku haysa howlaha banaynta dhulka danta guud ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ka wado caasimadda dalka Muqdisho waxaana dhawaanahan Daynile ka taagnaa buuq xoogan oo gaaray ilaa ay soo farageliyaan xubnaha mucaaradka oo garab istaag u muujiyay dadka shacabka ah ee ku nool degmada Daynile si kastaba noqotay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa meelo badan oo kamid ah caasimadda dalka Muqdisho waxa ay ka sameysay burburin xoogan iyadoo maalmihii u dambeeyay ay ka cagta marisaba xaafado dhowr ah oo ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir xaafadda ugu dambeysay oo ay cagafta dawladdu ay kashana waxa ay tahaba xaafadda lagu magacaabo Jiiro Karoob oo ka tirsan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir xalay saqdi dhexe halkaasi waxa gaaray ciidamo hubeysan kuwaasi oo wada cagafyo isla markaana gudaha u kale xaafadda Jiiro Karoob xilli markaa dadku ay aad u hurdayeen taasoo sababtay cabsi iyo barakac degdeg ah oo markaa soo food saartay shacabka halkaasi ku nool dadkan aad aragtaan waa dadkii deganaa xaafadda Jiiro Karoob ee ka tirsan degmada amniga gobolka Banaadir waxaana xilli habeen ah ay kuranayaan alaabtooda oo waxa ay ka guurayaan halkaasi horay dadka deegaanka waxa markii hore loogu sheegaba in kaliya loo furayo wadooyin balse xaaladdu si lama filaan ah isu bedeshay isla markaana hadda la doonayaba ama laga doonayo lacag fara badan si markaa ay u sii joogaan gurigooda lacagtaas ayaan dadku ay sheegeen inaysan awoodin isla markaana ay tahay lacag aan macquul ka lahayn sidoo kale waxa la sheegay in burburinta xalay laga sameeyay gudaha degmada Yaaqshiid gaar ahaan xaafadda lagu magacaabo Jiiro Karoob inay ku lug leeyihiin xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dalaal lagu magacaabo dalaal Ciro inkastoo wali si rasmi ah aan loo xaqiijin doorkooda ku aadan
burburinta xalay laga sameeyay qaybo ka mid ah xaafadda Jira Garoob ee degmada Yakshiid ee gobolka Banaadir. Shacabka ayaa waxa ay wajahayaan cabsi xoogan iyagoo markaa ka cabsi qaba in xaafadahooda la soo gaaro isla markaa laga burburiyo. Inta badan Muqdishona waxaa ka socota burburinta ay wada dowladda Soomaaliya, waana dagaal xalay uu ku dhex maray degmada Daynile ee gobolka Banaadir ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dadka shacabka iyagu isabaabulay ee hubka haysta. Waxaana dowladdu weli ay sii wataa burburinta ay ku hayso dhulka ay degan yihiin dadka shacabka, iyadoo inta badan dowladdu ay ku sheegtaba dhulalkaasi ay yihiin kuwa dan guud ah, balse dadka shacabka qaarkood waxa ay ku antacoonayaan inay dhulkooda ay leeyihiin isla markaana ay u haystaan sabarloogyo sharci ah oo dowladda Siyaad Barre ay siisay. dhanka kale intaa ka bixinta wadayaal wararka Daynile Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku eedeeyay weerarkii xal lagu qaaday degmada Daynile. Musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud in weerar uu ku qaaday degmada Daynile halkaas oo saacadii u dambeeyay dowladdu ay halkaas ka geysaba ciidamo tiro badan kuwaasi oo qayb ka ah sugidda amniga howlgalka la burburinayo ama howlaha burburinta ay halkaas ka soconaya. Xasan Cali Khayre ayaa maamulka iyo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu yeeray talis arxan daran oo ku jira maalmihiisii ugu dambeeyay, isagoo markaa ku eedeeyay inuu ku mashquulsan yahay xaalufinta dalka iyo boobka hantida qaranka. Waxa ayaan darro ah iyo sidoo kale musiibo qaranba ah in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay weerarayso shacabka si ay uga barakiciso guryahooda, ciidankii qarankana ugu adeegsato dhulboobka, barakicinta iyo kumaadka shacabka, ayuu Khayre ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook. Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale uga digay ciidamada ammaanka inay ka qayb qaataan waxa uu ku sheegay boobka dhulka shacabka, kumaadka dadweynaha, barakicinta dadka danyarta iyo fulinta damaca guraacan ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida uu ku sheegay qoraalkiisa uu soo dhigay Facebook. Sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ahna hogaamiyaha madasha samata bixinta ayaa dhacdadan isna ku tilmaamay faldambiyeed u baahan in la iskula xisaabtamo. waxaa madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaadka yahay Xasan Sheekh Maxamuud aan xasuusinaynaa in la soo gaaray marxalad halis ah oo ay tahay inuu ka waantoobo ku tagrifalka awoodda dowladda iyo boobka hantida ummadda, ayuu Sheekh Khaliif ku yiri war saxaafadeed uu soo saaray. degmada Daynile ayaa saacadihii ugu dambeeyay laga dareemayay xiisad ka dhalatay qorshe ay dowladdu ku burburinayso koobo dan guud ah oo ay deganaayeen dad shacab ah. Dowladda ayaana dadkaasi ugu baaqday inay ka guuraan koobahaasi, balse waa ay ka soo horjeesteen, taasoo keentay in ciidamo fara badan la geeyo xaafadaha Warlaliska iyo sidoo kale koobo kale, isla markaana halkaasi iska horimaad qasaare badan dhaliyay oo xalay ku dhex maray ciidamada dowladda iyo dadka shacabka ah ee difaacanaya dhulkooda. Gudahaan daawadayaal waa naga inta wararkii ugu dambeeyay gudaha dalka teen la soo gaartay ilaa dhamaadka muuqaalka Lexar. haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biir oo subscribe saarno channelkeena. mahadsanid.